ciidamada Ruushku waxay diyaar u yihiin inay duulaan ku qaadaan Ukraine xilli kasta sida awgeed waa inay muwaadiniinta dalkaasi Mareykanku ay kala baxaan muddadan 48 saacadood gudahood sida ay sheegtay xukuumadda Washington. duulaankani ayaa ku bilaabmi kara duqeyn cirka taasi oo adkaan doonta sida looga samata bixin doono muwaadiniinta u dhalatay dalka Mareykanka sida uu sheegay aqalka cad. xukuumadda Moscow ayaa marar badan beenisay inay duulaankani tahay Ukraine inkastoo ay ciidamada badda oo gaaraya 100,000 oo askari ay u daadgureynayaan dhanka iyo xuduudaha ay wadaagaan labada dal. dalal badan ayaa ugu baaqay inay kala baxaan muwaadiniintooda oo ay ka mid yihiin UK, Canada, Australia iyo Japan. wasaaradda arrimaha gudaha ee Ruushka ayaa ku adkaystay dagaalka galbeedka inay faafiyaan macluumaado been ah. Putin waxa uu faray markii uu Moscow diiday in la baaro kahor kulankoodii inkastoo ay dhan tahay awoodda militari ee dalka Ukraine. la-taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay hadda diyaar u yihiin duulaan militari oo ballaaran kaasi oo guud ahaan saameyn kara dalka Ukraine. weerarkaasi oo u muuqday in uu Mareykanku ka qustay in xal laga gaaro xaaladda adag ee taagan ma saadaalin karno mustaqbalka maanta balse waxay maraysaa xaaladdu meel adag waana sababta ay muwaadiniintu ay uga baxayaan dalkaasi Ukraine. Mareykanka ayaa intaasi ku daray haddii uu Ruushku weerar ku soo qaado Ukraine in aanay ciidan u soo diri karin muwaadiniinta ku sugan Ukraine balse cunaqabateyn ballaaran la saari doono Ruushka.